sidaas daraaddeed waxaa muhiim ah inaanan qofna laga ogolaan dhaliil dalka wax lagu duminayo inaanan ogolaan dhaliil ujeeddo gaar ah leh oo lagu fushanayo dana khaas inaanan ogolaan dhaliil la doonayo in lagu dumiyo iftiinka nolosha ee hadda inoo soo ifbaxay waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan Soomaaliya hore ayay u socotaa gadaalna u noqon mayso waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed haddii aad hore u arki jirteen in la niyad jabo way dhammaatay waqtigii la niyad jabi jiray waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed haddii ay jiri jirtay 27 sano la soo dhaafay in markii isjijiid yimaado inay madaxdu niyad jabaan madaxda idin hortaagan ma aha kuwa hadday jirto qof Soomaaliyeed oo ka walwalsan maalmaha la qaylinaya ama buuq siyaasadeed dhacaya sidaas daraaddeed madaxdu qolalkeedii ku laabanaysaa waxaan idin ballan qaadayaa inaan idin la mari doono ilaa meesha ugu dambaysa aan tegi doono Soomaaliya waxay ku socotaa meel barwaaqo ah annaga u jeednaa oo idin soo aragnay dhulka barwaaqada u socda iftiin baa ummadda Soomaaliyeed u yimid waxaan rabnaa inaan iftiinkaas la qaadno kulligeed waxaan soo jeedinayaa sidaas daraaddeed fikir xumada in lagu bedelo inaan gacmaha isqabsan inaan u aragno in nabadda iyo dawladnimadu ay qof kasta ay dana ugu jirto inaan meel uga soo wada jeesano shacab iyo dawladba qofka doonaya inuu dumiyo wax yar oo inoo dhismayo inaan qofkaan dooranno oo madaxda inoo ah oo madaxweynaheena iyo guddoomiyaheena ay ugu horeeyaan iyo wasiiradeena inaan siino fursad ay dalka wax ugu qabtaan inaan ku bedelno dhaqankii ahaa anigu haddaanan wax helin dalka la duminayaa dalka kaa horeeya adiga inaan ogaano in qof kasta xisbi kasta iyo koox kasta ay ka weyihiin jiritaanka calanka nabadda iyo dawladnimada sidaas daraaddeed anigoo u mahad celinayaa walaashii Khadiijo iyo dhammaan dadkii waxaan soo abaabay waxaan idin leeyahay mar walba meel ayay taariikhdu ka bilaabataa maantay oo ay tahay 63 guuradii ka soo wareegtay markii calankeena idibada loo taagay cidda doonaysa inay ka mid noqoto taariikhda cusub oo dalkan laga samayn doono waxaan leeyahay kaalay anaga na soo raac waa mahadsantiin